عاوة سليمان مهدي عيدي waxaan marka ugu horeysa u mahadcelinayaa taageerayaasha reer Jubbaland State ee caawa xafladan ka soo qayb galan aad iyo salaamantii waxaan mar labaad iyo mar kale u mahadcelinayaa iyagana telefishinka caalamiga ee on cable TV oo shaqo wanaagsan inoo qabtay waxaan cod dheer taageero gudbinaynaa maamulka cusub ee Jubbaland State eeuu hogaamiyo mudane Ahmed Islaan Ahmed Madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul stateska Jubbaland State Abdullahi Sheekh Ismaaciil General Fartaag waxaanu ku taageeraynaa maskaxiyan siyaasiyan iyo si kasta oo wax loo taageero oo sharciyad ku dhisan waxaan u mahadcelinayaa odayaashii dhaqanka aqoon-yahanadii siyaasiyiintii culimaadudiinkii ururadii haweenka muddada 5 sannadood u dhowr adeegay dhibaato kastaba u soo maray sidii uu xagiisa isugu taagi lahaa maamulka Jubbaland State waxaan leeyahay waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaan leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga jeedino dawladda Soomaaliya waxaan leenahay annagoo taageerayaasha reer Jubbaland ee dalka Jarmalka dawladdu waa inay u dhaganugnaato rabitaanka shacabka ayna luminin kalsoonida shacabka ay dawladda u tahay waxaa loo baahan yahay midnimo Soomaaliyeed qofka bini'aadanka wuxuu beerto ayuu goostaa wax la beerana dad ayaa u wanaagsan marka waxaan leenahay xukuumad madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh gudoomiyaha ra'iisul wasaaraha Mr. Saacid iyo xukuumaddiisa gudoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari iyo dhammaan mudanayaasha marxaladda siyaasadeed ee maanta Soomaaliya ku jirto runtii in laga fikiro mustaqbalka Soomaaliya waa wax aad u muhiim ah Soomaaliya marxaladdii aynu soo marnay way dareemi karnaa maanta oo aynu haysano nididilo fiican in aynu hore u socono ayaa fiican waxaan rajaynayaa oo dawladda Soomaaliya aanu ka rajaynayaa inay ummadda Soomaaliyeed qiblada u tijiyaan ummadda Soomaaliyeed qiblada u tijiyaan Jubbaland State Jubbaland idinkuna waa mahadsantihiin gabadh aad u dadaashay kasoo qayb qaadatay dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka marlabaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inagu ummadii nebi maxamed baynu nahayo waxa munkarkaana waa iska reebnaa macruufka inay surrabayhay laakiin baryahanka waxaa moodaa bilcagsi loo rogayo aynu isfarro munkarka oo iska reebno macruuf oo ninka macruufka wada cidlo laga tago waxa weeyaan waxa ay tahay dadku waa dad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka mid ah maamulkuna waa maamul dhowaan la dhisay sida maamulada kale loo dhisay baanuna u dhistay maamulkiisa iyo dantiisa dadka deegaanka bayna khusaysaa ma wax qabiil dadku waxay tahay marka xoolaha dad shacabka lagu xiro badinayo inta hore ma ku jiray dad ay isku siin maayeen dadku waa dadkaas alla isku Soomaalida oo isku diinta oo isku badda oo isku dhaqanka oo isku codka oo xididka oo tolka dalka Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ku leeyahay in nabad lagu dhago oo ninka xilka qaaday nabad ma sameyn kara dadweynuhu sameeyo shacabka aniga taytarka ay sheegayaan ku hadli maayo xildhibaan meesha ka ahaan jiray ma joogo oday Soomaaliyeed baa taageeraya dowladda Jubbaland waxa weeye waa faa'iido u soo kordhay dalka ayay ka mid tahay Jubbaland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ilaahay وقول برعاد الله السمريو
guddooma dhammaantiin intaas waxaan kaloo ku darayaa maamul kasta oo dhasha oo ka dhasha Soomaaliya inaanu garab istaagno oo aanu maaragtay taageero u muujino maaha kaliya Jubbaland yaara oo nabadgelyada maxaan ku raadayay dhexda u xirtana waanu garab